16 qof ayaa laga helay xanuunka coronavirus kadib markii baaritaan ay ku sameysay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal dad tiradoodu ku dhowdahay 700 oo qof sida uu warbaahinta u sheegay isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse markaad eegto 685 taasi 16 qof oo kamid ah ayaa waxay noqdeen positive ama laga helay xanuunka COVID-19 waad garan kartaan waxay u badnayd oon oran karnaa xaaladiisu ay marba ka soo dareysay ama kor ay u soo kacaysay bilbabilka ay ka dambayso isku duwaha wasaaradda caafimaadka oo hadalkiisa sii wata mar kale waxa uu sheegay in dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaareen degmooyinka kale ee ka tirsan gobolka Awdal waxa kaloo jira oo bulshadu inay ogaato ay muhiim tahay ma aha kaliya Boorama goobta dadkani aan oran karno waa laga helay waxa jirta tuulada la yiraahdo Osoli oo kamida degmada Lughaya dad ilaa gaadhaya 30 qof ayaa waxa laga soo qaaday dhiig iyada oo calaamadaha aw leeyahay COVID-19 intooda badan bay ka muuqdeen alxamdulillah ilaa imika waxaan filaynaa oo ka sugaynaa jawaabta bahda laboratoryga gobolka oo PCR ka gacanta ku haysa waxaan u dirnay shaqaalo xirfadlayaal oo dhakhaatiir iyo nurses iyo laboratories ku jira si ay dadkaasi u soo ogaadaan ugu dambeyntii isku duwuhu waxa uu bulshada ugu baaqay in loo dhaga nuglaado fariimaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan bahda caafimaadka ee la xiriira xanuunka COVID-19 laakiin xanuunkani ma aha mid la xakameyn karo markaad eegto haddii ayna bulshadu u dhaga nugleyn inay fariimaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka inay qaadato istabiska la qaadayo ee lagaga hortagayo waxa kow ka ah inay dadku nadaafadooda ilaaliyaan inay kala fogaadaan inuu qofku taxadir dheeraada u yeesho inuu isagu au ilaaliyo habka neefsigiisa oo afsaarka oo xidhnaado sidoo kale bulshadu inay isku ururka inta badan ay ka taxadirto Axmed Iriya Ciil Tire wararka warbaahinta SBC Boorama